bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaashayada qiimaha iyo qadarinta loo kusoo dhawaada barnaamijkeenii dhabka hadal waa barnaamij taxana ah oo aanu aala kusoo qaadano arrimo aada iyo aad aanu isleenahay waxay muhiim u tahay bulshada soomaaliyeed. dhabka hadal waxaad nagala socotaan tv-ga caalamiga ee calson t v. dabcan caawa waxaynu kusoo qaadan doonaa dhabka hadal qeybta aynu ugu magac darnay care edeg oo inta badan aynu maalmahan kaga soo hadlaynay arrimaha dalka Jabuuti. 2 asbuuc ka hor waxaad halkan ka daawateen annagoo ka hadlayno arrimo ku saleysan mucaaradka iyo muxaafidka dowladda Jabuuti. waxaana inoo martay ahaa wakiilka arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee ESN mudane Mahdi Ibrahim Good. maantana waxaynu kusoo qaadan doonaa heshiiskii dhex maray dowladda Jabuuti iyo mucaaradka. waxaa marti ah oo aalaaba aad inta badanna aad inta ka daawataan tv-gan caalamiga ee calson t v mudane aadan jaamac kaahin oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kuna nool magaalada Milton Keynes ee gobolka Buckinghamshire ee wadankan Ingiriiska ahna xildhibaan laga soo doorto magaalada Milton Keynes. mudane aadan kusoo dhawow marka hore dhabka hadal. aad baa mahadsantahay Faysal. inta haddaan kaga gudbo, dabcan maalmihiina wadaartay waxaa ka dhacay heshiis aada iyo aad maaragtay dad badan ay garhka ugu luleen magaalada Jabuuti. heshiiskaasoo dhex maray jamhadda ama xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda Jabuuti iyo dowladda Jabuuti. caawa waxaynu doonaynaa bal inaan isdul taagno heshiiskaasi wuxuu yahay iyo waxa sababay iyo sababta iminka yacni oo waxa soo cusboonaysiiyey. marka intaanan u gelin su-aasheedii hore waxaan doonaya inaan wax kaa weydiiyo bal dadka na daawanaya Soomaaliyeed bal inaynu la wadaagno bal Jabuuti waxa ay tahay iyo halka ay ku taalo iyo dowladda Jabuuti qaabka u shaqeysay miisaaniyadeeda. qaybteena hore barnaamijkeena waxaan markaa kusoo qaadaynaa dhaqaalaha dowladda Jabuuti iyo miisaaniyadeeda sida uu yahay iyo sida uu kala baxo. kusoo dhawaa mudane aadan. Faysal aad iyo aad baad mahadsan tahay. haddii aan ka jawaabo su-aasha ay weydiisay, Jabuuti taariikhiyan waxay qaadatay xornimada 1970kii. waqtigaas intaan xornimada qaadan kahor waxaa loo yaqaanay French Somaliland oo markii dambena oo u bixiyey Francisco Isa al-Afar si uu magaca Soomaalida uga saaro meesha. Jabuuti markaa waa wadan u dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya iyo wadanka Ethiopia. saddexdaas qaybood buu u dhexeeya. xagga waqooyi waxay ku laalaan oo 30 kilomitir u jiraan badda xaggeeda marka laga eego dhinaca Bab-Mandeb loo yaqaano dalka Yemen, xaqaasan dhinaca Cadan xaggeeda. marka waa wadankaas oo ku yaala meel istiraatiiji ah. haddii aan dib ugu noqdo intaan dhaqaalaha gelin ka hor, waxyaabaha loo abuuray Jabuuti waxay ahayd sidii aan hore ugu sheegnay taariikhdii hore halkan aan ka baahinayba 1899kii ayaa dhex maray heshiis Milix iyo maxalada iyo dowladda Faransiiska kaasoo lagu calaamadiyey Jabuuti lafteeda si looga saaro qaybihii kale Soomaalida. ujeedadu markaa ay ahayd in la helo meel looga adeego dowladda dalka Ethiopia oo har looga sameeyo tareen gaara. taasina waa taariikhdii hore iyo si loo calaamadiyey dalka Jabuuti. haddii aan kusoo noqdo dalka Jabuuti iminka sida uu nool yahay, waa dal ay degiin lagu qadaray 800,000 oo qof. wadan aad u yar runtii aan lahayn macnaha waa wadan aad moodo inuu aanu dee beero badan lahayn oo aan webiyo lahayn, laakiin aad moodo inuu dhul kulul u badan yahay. wadankaasi markaasi sida la qiyaasayo dadka ku noolay waa 60% waa dad Soomaali ah, 35% waxa weeye waa dadka loo yaqaano 160 baan leeyahay waa Soomaali. 35 ama 30 meelahaas oo kartaan waxa weeye waa canfarta. inta kale soo hadhayna waa dadka kale ee ajnabiga oo isku jira Carab iyo dad kale oo ajnabi oo meesha degan. taasna markaa waa sida ay dalkaasi u yahay iyo meesha ku yaalla marxadahan. waayahay waxaad doonaynaa bal inaynu yar eegno maadaama aad ka hadashay Jabuuti. runtii Jabuuti taariikhdeeda in badan baanu halkan ka hadalnay oo aynu bulshada aanu u tabinay. ma doonaynaa dib ugu noqono maadaama caawa barnaamijkeenu ku saleysan yahay heshiiska dhex maray mucaaradka iyo dowladda Jabuuti. run ahaantii saad sheegtay ama wadanka Jabuuti maaha male beero waaweyn male warshado waaweyn wax soo saara,
laakiin waxaa lagu tilmaamay Djibouti inay tahay meel istiraatiiji ama jugraafi ahaan muhiim u ah. waxaa la sheegaa Djibouti iyadoo inta badan baahiyaha caalamka ma doonato, laakiin iyada baahi loo qabo deegaanka ay ku taal ayay wadamada inta badan ay u yimaadaan oo heshiisyo kula galaan. marka dowladda Djibouti waxaa maalmihii ama sanadihii u dambeeyay iminka ay ka heshaa dhaqaale aad fara badan wadamo waaweyn oo reer galbeed ah ama bariga fog ka yimid. dhaqaale fara badan baa soo gala. dadka reer Djibouti waxaa lagu tilmaamaa sidaad sheegtay waxaa tiri waa 800,000 dhaqaalaha soo gala iyo sida loo maareeyo iyo miisaaniyadda dowladda, bal wax nooga sheeg taasi. dalka Djibouti waa runtaayo intii uu khaasatan Ismaaciil Cumar Geelle xukunka qabtay oo ahayd 1999 intaa wuxuu runtii isku dayay inuu markaa dhaqaalihii waddanka aad u xoog bedelo. runtiina waxaad moodaa intii uu isagu joogay in isbeddel muuqdaa meesha uu ka bilaabmay. sida ay qorayaan World Bank-ka anigan ka soo xogto iyo Charter House labadaba oo dalka Ingiriiska ah, dhaqaale ahaan waxaa lagu xisaabiyaa dalka Djibouti in $1 billion helo sanadkiiba. waxaa marka la eego waddankana la yidhaahdaa nolosha marka loo eegayo waddanka ugu qaalisan wax ku jira wadamada adduunka ugu qaalisan dowladda carabta marka eegto nolosha xaggeeda marka eegto waxaa leeyahay waddan aad u qaali ah. taa marka laga tago haddii aan in yar ku laabto meelaha ay dhaqaalaha ka helaan waxay isugu jiraan waxa weeyaan maalgelin dibadda ah. مثلا tusaale ahaan meesha loo yaqaano Doorale oo ah dekedda cusub oo la dhisay 2009 la dhisay oo 2006 ay heshiis la galeen dhismaheeda wal Dubai qolada loo yaqaano oo ka mid ah shirkad weyn oo Dubai leedahay waxaa ku baxday lacag dhan ilaa $400 milyan oo dollar. lacagta laga siiyaa markaas ay dowladdu sanadkii ka qaataa dekeddaas iyada waa $40 milyan oo dollarka Mareykanka. lacagta kale hesho soo gashay Djibouti waxaa ka mid ah Mareykanku wuxuu siiyaa $30 milyan sanadkiiba uu ka siiyo xaaladda militariga ku taal Lamoni meesha loo yaqaano oo ciidamadiisu ay fadhiisi ku leeyihiin kuwaas oo la dagaalamaya sida sheegan barcabeeda ama loo yaqaano Afro-American qolada loo yaqaano Afrika xaggeeda xagga ka ilaalisa. waxaa kale oo ay siiyaan Djibouti hore u fadhiyi jiray Faransiiska oo isagoo xiriir ballaaran la lahaa dowladda Djibouti oo isaguna bixiya ilaa $30 milyan oo dollar sanadkiiba. waxaa intaas sii dheer oo kale dowladda Jarmalka iyaduna sidoo kale wax ku yeelatay fadhiisin waxaana bixisaa $10 milyan. Jabaanka isna yimid oo isna bixiyay $10 milyan. intaas waa dhaqaalaha toos u soo gala oo ay leedahay. waxaa u sii dheer ilaa $150 milyan sida la sheegayo oo hay'adaha caalamku ay siiyaan Djibouti. sida ay marka ribooradu qorayaan waxay leeyihiin waxaasoo lacag galaya meesha marka la eego dadka habka nolosha ay dadku nool yihiin marka eegto waxaad moodaa in dadkii weli ay ka muuqanayso macnaha fakri badan oo standard of living ama nolosha marka kamarada dadku ku qabato aan weli dadkii nolosha aad moodaa nolosha dadku ay aad u hooseyso runtii. waxaa lagu qadaraa dadka shaqaalaanta waddanka ilaa 65% markaad eegto xagga intaas markaa waa dhaqaalaha. inkastoo uu waddanku uu yahay saan sheegay waddan aan beero lahayn oo waxba lahayn haddana madaxweynaha wuxuu isku taxaluujiyey in bal waxyaabo badan intuu joogay meesha uu ka qabto. waxaa ka mid ah sida halkan ku arkaynaba 2000 waxaan maleynayaa 2006 ilaa 2011 waxaa markaa Djibouti soo fadhiistay oo yimid ilaa 9 bank oo kala saba bank oo ay leedahay qaar ay leeyihiin Yementu, qaar ay leeyihiin Iiraantu leeyihiin, qaar ay Libnaantu leeyihiin, qaar ay leeyihiin Malaysia. laba bangi oo Soomaaliya leedahay banka loo yaqaan Dahabshiil iyo Salaama ilaa 9 bank isku noqonayaan. markiina waxaana hore haysan jiray markii hore Money ku haystay laba bank oo Faransiisa oo bank loo yaqaan Credit Bank iyo bank loo yaqaan Indo-Swiss Bank oo ay leeyihiin Faransiisku. marka kuwaas markaa waxay fureen macnaha furnaa badan xagga dhaqaalaha. xagga marka laga tago oo dhinacan bangiyadan Djibouti ku soo batay la eego oo la jaan qaaday dekedan cusub imka Doorale la sameeyay ee baaxmushariga waxayda. waxaa kale oo jira iyada lafteeda meesha loo yaqaano Jabal Cali free zone ama zoonka xorta ah ee ay leedahay dowladda Dubai ayaa isaguna ka furtay isla meesha lafteeda Djibouti meel u dhow Doorale agteeda ama dekedaas meel weyn oo lagu talagalay free zone ama waxa loo yaqaan baaxmushariga xorta oo lagu qadaro ilaa 17,000
oo hektar halkan waxaa lagu talagalay inay degan karaan ilaa 100 company iyadoo arrintu dee ku socoto oo kambaniyo badan imanayeen ayaa markaasi berigii ay dhaqaalaha Dubai hoos u yar dhacay ayaa markaa kambaniyada qaarkood ay markaa halkaasi ay igu ku yar hakadeen haddii marka aan dhaqaaluhu bilaanayahay aan si yar dhex galo aan si yar eego waxyaabaha markaa dowladda iminka aad moodo inay weli ay u jilicsan tahay waxaa ka mid ah dhinaca biyaha oo dadka Jabuuti ay aad uga cawdaan in ay weli biyuhu ay yar yihiin marka World Bank ama bangiga adduunka amaba Charter House-ku waxay leeyihiin ilaa 15 mil community wax lagu qiyaaso biyaha ayay dadku helaan laakiin markii 30 helaan oo mil community habka biyaha loo qiyaasaa ilaa 30 mil community asir sheegayo ay biyo ku filan karaan marka ilaa intay haystaan 50% baa weli u baahan in sidii dadku biyaha ay uga qabtaraan intii ay dowladdu joogtay markaas hadaba waxa ay dhibaato badan kala kulantay xagga maartay leerka ama shidaalka Jabuuti waa taqaanaa wadan adag oo waa sidii xeebta Jabuuti oo kale noqonaysa ama Boosaaso kale sidoo kale badda cas ku taala marka dadku badankoodu waxay ku leeyihiin 60% Jabuuti way ku leeyihiin magaalada caasimadda marka dadkii waxay aad uga cawdeen leerka oo aad u qaali ah marka dowladda Jabuuti iyo madaxweynuhu waxay taxalujiyay markaasi inay la galaan heshiis dowladda Itoobiya oo markaasi dhaawanka ay leedahay ay markaasi haddaan ka dhexgalo intaadan heshiiska aadan Itoobiya iyo Jabuuti ay wada galeen ku saabsan in laga caawiyo xagga korontada ama awoodda korontada dhaqaalaha faraha badan ee aad sheegtay ee iminka soo sheegtay wadamada badan ay bixiyaan sidee ku dhici karaysaa marka ama aad sideed u malayn karaysaa markii aad daraasada ku samaysay lacagtaasi xagee ku baxdaa haddii aad tiri 65% shacabka reer Jabuuti waa bilaa shaqo aynu ognahay magaalada Jabuuti dadka ku nool tira ahaanna inay yihiin saas sheegtay dadka ugu badan yani wadanka Jabuuti inay caasimadda ku nool yihiin lacagtaasi xagee ku baxdaa faraha badan leh haddayna korontadii ay dadku haysan oo biyo aysan haysan oo caafimaadka uu dadku u liito wadooyinka ay liitaan sidee marka lacagtaasi xagee ku baxdaa malayn karaysaa daraasada markaad samaysay horta waxa weeyaan marka gudaha wadanka laga hadlayo dibadda kala gaar horta gudaha wadanka dadkii loo fasiri kari maayo sababta waxa weeye xisbi mucaarada oo miidiyii ama jaraa'id ku soo qoraya waxa oo muujinaya ma jiro sababta waxa weeye dowladdii waa dowlad xisbi kaliya ah oo markaa iyadu waxay doonayso oo soo saaraysa dadkii markaas u muuqan wax ka soconaya meesha laakiin markan daraasadahan ay caalamka kale ay iftiiminayaan aan soo qaato sida Charter House-ka Ingiriiska iyo World Bank-ba waxay iyagu leeyihiin waxa weeyaan wadanka Jabuuti waxaa la soo sheegay inay ku baahsan tahay waxa loo yaqaano musuqmaasuqa ama corruption-ka taasi ayaa markaasi ay keenaysaa markaasi in lacagaha badankooda si la doonayay loo maamuli waayo waayahay waan gartay waxaad tiri heshiis baa jiro dhex maray dowladda Jabuuti iyo dowladda Itoobiya oo ku salaysan ka caawinta xagga xoogga korontada heshiiskaasi muxuu yahay muxuuse dhigayay muxuuse qabtay iminka ama ma hirgelay mise waa mid weli arrintiisa ay qoyan tahay heshiiska dhowr sano ka hor bay wada gaareen laakiin waxa weeye already saan la soconno talaalkii korontada amaba waxaa loo yaqaano leyrka ee soo gaaray Jabuuti uu soo gaaray marka markii hore Jabuuti dadku inta kilowaadkiiba waxaan jiray 30 kilowaad baan jiray marka adigu in ku dhow kilowaadkiiba dollar ayaa markaasi ay noqonaysaa lacagta marka laga qaadayo leerka soo gaaray Jabuuti inkastoo weli dadku ay leeyihiin si la doonay nama gaarin laakiin dowladdu waxay leedahay weli hadduu cusub yahay oo sii wadnaa laakiin soo gaaray dhinaca kale dowladda Jabuuti lafteedu iyadoo dhaqaalaha ka fikiraysa iyo weliba xaggan leerkan biyaha ay keensatay oo leerde ay dadka soo qaato iyadoo aan lahayn haddana dowladdu meesha loo yaqaan laasgeel meesha loo yaqaan las ceel baa malaya tahay meesha laaska loo yaqaano anyway meel kulul ah oo ku taala dhinaca waqooyiga oo aad u kulul oo umi badan ka soo baxo ay dowladdu markaas wax loo yaqaano geo wind laga sameynayo kambaniya lagu siiyey markaasi oo ay bixisay malaayin dollar dowladaha European ku caawiyeen iyo World Bank-ba si umigaas looga faa'iisto oo dhan umigaas loo saaro iyo dabaysha faraha badanba ay hadhow helaan leyd markaasi isagu ku filan Jabuuti oo heli kara kaana barnaamijkiisa ku socda iyaduna waayahay inta haddaan kaga gudubno qaybtii hore aan kaga hadlaynay barnaamijkeena caawa ee ku salaysan heshiiska dhex maray dowladda Jabuuti iyo mucaaradka Jabuuti miisaaniyadda iyo dhaqaalaha haddaan intaa kaga gudubno
waxaynu doonaynaa bal inaynu wax iska yar weydiino arrimaha siyaasadda. dabcan inta badan dadka iminka kusoo biiray barnaamijka walaalayaal waxaan idiin sheegaynaa in aynu ka hadlayno heshiiskii dhowaan dhex maray dowladda Jabuuti iyo mucaaradka. arrimaha siyaasadda mudane aadan haddaynu ka hadalno dabcan halkan in badan baanu kasii daynay arrimaha siyaasadda iyo habnololeedka iyo taariikhda dadka reer Jabuuti. dabcan dadka reer Jabuuti oo dadka Soomaalida reer Jabuuti ee ku nool Jamhuuriyadda Jabuuti ee wadada wanaagsan marka laga hadlayo oo maartay habdhaqankooda iyo noloshooda iyo Soomaalinimadooda yani runtii ay yihiin dad aad iyo aad u qalbi wanaagsan. laakiin waxaa jiro ismaan dhaaf iyo xurguf badan oo in badan dhex taagneed dowladda iyo mucaaradka. dhowaan heshiis baa dhacay. heshiiskan dhowaan dhacay 29kii bishan iminkana weydaartay December 2014 muxuu yahay heshiiskaasi? ma heshiis is-afgaradba? ma heshiis lagu heshiiyey nidaamkii jiray in wax laga bedelaa? mise waa heshiis weli qabiye ah? muxuu yahay heshiiska adoo u bidhaaminaya dadkana daawanaya? okay heshiiska horta waxa weeyaan wataqaanayo khilaaf soo jiitamayay ayuu dib u noqonayaa oo saad sheegtayba waxa weeye 20kii bilood ugu dambeysay waddanka Jabuuti mudaharado badan ka dhacay iyo khilaafaad badan oo soo jiidasha ayaa waddanka gudihiisa ka soconayay inkastoo aanu midiya saxa oo soo dayay waddankii aanu jirin. laakiin waxaan maqlaynay macnaha mudaharada ayaa ka jira Jabuuti intii carabtu ay bilowday waxa loo yaqaan uprising carabta xaggeeda ka dhacay ayagu xaggeeda ka bilaabmay waxa intii doorashadii hore ee madaxweynaha u dhaceen. marka dadku waxay ka dhigayaan markaa laba qaybood baa sabab u ah. qaybta koowaad waxaa la odhanayaa khilaafkaasi xagga mucaaradka iyo dowladda waxaa u saleysnaa iyadoo ay mucaaradku ku doodayeen doorashooyinkii dhacay waddanka ka dhacay si xaqa uma dhicin oo dowladda ku shubatay. dowladda xaggeeda leeyahay anagu sax baanu ahayn. iyo qodobka labaad oo ahaa madaxweynaha oo lagu talagalay laba teeram ama laba jeer oo kaliya inuu soo taago ayaa markaasi isaga 2010kii loo kordhiyey markaasi in loo bedelo macnaha constitutionka ama sharciga waddanka oo markaa madaxweynaha loo ogolaaday marka saddexaad soo taago. taasaa marka keentay carada faraha badan ee dadkii Jabuuti iyo mudaharadadan iyo khilaafka badan iyo dadkan badan ee badan ee soo kordhay mucaaradkoodu arrimahaasaa markaa u sal ah. midda kale waxaad moodaa baarlamaanka Jabuuti wuxuu ka yeeshay 60 kursi uu kooban yahay. marka doorashadii ugu dambeysay si ay dowladdu sheegtay waxay heleen mucaaradku ay ku doodayso dowladdu 10 kursi macnaha 5 kuntan waxay dowladda xisbiyada taageer oo saddex xisbiyadan isbahaystay oo loo yaqaano USN oo 8 ah oo mucaaradkaana markii ay doorashada galeen dowladdu sidii ku doodayso waxaa leedahay waxay 10 kursi oo kaliya ayaguna waxay leeyihiin anagu waxaanu helnay inta ka badan ama annagaaba helnay leeyihiin ama aan ku dhawaanay leeyihiin soo eegay. marka saa daraadeed 10 kursi ee markaa lagu talagalay siba mar yihiin oo may qaadanin sidaasaana loo kala fadhiyey ilaa waqtigaasi oo ay markaa dowladda iyo ay u kala fadhiyeen. waayahay waxaa jira heshiisyo hore oo burburay tan iyo laga soo bilaabo 1990kii waxaa jirayay xisbi la oran jiray Furud ama Furudka koowaad ama Furudka labaad Furud 1 iyo Furud 2 oo qowmiyadda canfurtu ay inta badan ay maartay garwadeen ka ahayd. heshiisyada burburay maxaa sal u ahaa iyagu? waxa weeyaan 1900 iyo adigu 9aadkii ilaa 29kii wax ka bilaabmay markii uu Xasan Guuleed uu ahaa madaxweynaha ka ahaa Jabuuti in canfurta markaasi ay dagaal soo qaadaan dagaal soo keenay waddanka muddo badan ka socdo. marka intii uu madaxweynaha Jabuuti aan noqonin madaxweynaha oo markaa gacanta ku hayay maxaa la ninka loo yaqaano Xasan Guuleed abtidoon madaxweynihii hore marka 1994kii ayuu ahaa marka waxa loo yaqaano Furud 1 ama heshiiskii horeysay ee ururka dagaalamayay hubaysnaa ee canfurta lahayd la galay oo markaa prime ministerkii loo ogolaaday in la siiyo daleeta ahaa loo ogolaaday oo ay soo galaan. heshiis labaad baa dhacay markaasi oo markii dambe muddo qolo kale markaa ka hadhay oo Furud 2 la yiraahdo Furudkii labaad oo iyagu dagaalka sii waday kuwa markaa wax ku guuleystay Ismaaciil Omar Geele markii madaxweynaha noqday. madaxweynaha Ismaaciil Omar Geele wax la doortay 1999 marka Ismaaciil Omar Geele markaasi isagu wuxuu ku guuleystay in 2000 sanadkaas isaga ah oo la seexdo Furud 2 qorada loo yaqaano Furudkii labaad heshiis dhaqan gal ah oo markaasi halka lagu dhameeyo khilaafaadka joogtada ahaa ee ka socon jiray dhinaca canfurta dagaalada canfurta ay soo qaadeen oo mar walba farta lagu fiiqayay inay qaarna ka yimaadeen xagga Itoobiya qaarna ka yimaadeen dhinaca Eritrea. haddii aan in yar ku noqdana canfurta degan Jabuuti waxa lagu qadaray 200,000 canfurta degan maxaa la dhahaa meesha loo yaqaano Eritrea waa 400,000 kuwa kalena waa ilaa milyan iyo bar degan Itoobiya. marka waad garanaysaa
xagga xuduudda mar walba inay ka heli karaan taageero laga siinayo oo lagu bushkarayn karo siyaasadda guud ahaan meesha taala waa taqaanaayo markii Soomaaliya jirtay hore Soomaalida waxay caawin jirtay badan dadka Soomaalida anfarta mar walba xataa jirtay Ethiopia sida u dhahay waayahay dabcan qaaradda aynu ka nimid ee Afrika waxay caan ku tahay ama aad inta badan dunida ay taariikhda u galay in xukuumadaha ama madaxda ay mar walba ku bilaabaan si wanaaga ay ku soo galaan ama si ay ku soo galaan wadaninimo ah ama ay ku soo galaan si maartaqaan ay wadankeeda ama kacdoonada ka dhasha ay ku hogaamiyaan dabcan marka dambe waxay isu bedelaan waxa loo yaqaan dictatorka ama keligii talinimo Afrika waxay caan ku noqotay intaan dambe in mar walba madaxdeeda ay noqdaan kuwa macangagiina oo aan shacabkooda u turin mudan Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu kamid yahay dadka iminka lagu tilmaamo inuu yahay dadka ugu cimriga dheer madaxda iminka joogta Afrika ma laga yaabaa heshiiskan iminka uu mucaaradka la galay ESN qoladan ku bahowday ma laga yaabaa inuu ka dhabeeyo oo heshiiskan uu noqdo mid rajo fiican bulshada reer Djibouti geliya mase dhanka kale ma dhici karaysaa in heshiisyadii hore burburay ay wadadooda qaadaan kan heshiiskan iminka maanta dhacay oo kulli soo sheegtay Faisalow saddex heshiis kan ka horeeyay ayaa hore isu afgaran waayay oo ay dadku ay markaa qodobada qaarkood ay isla beediideen runtii oo lagu kala dhaaqay marka heshiiskan iminka waxaad moodaa in dadku ay yara bislaadeen oo labada dhinacba ay isku soo dhawaadeen qolo walbana markaa ay aragtay markaa ay wax ka tageen oo waxna ogolaadeen marka inkastoo dee marka ay wax dhaqan galaan dambe un la garan karo si isagu isugu bishubanayaan laakiin markii aan dhageystay aan eegay mucaaradka hadallada ku hadlayaan waxaan moodaa inay ku qanacsan yihiin oo ay leeyihiin insha allah waxaan eegi doonaa bal dhaqangalka si uu dhaqan galo inkastoo hadda aan ku qanacsannahay sida uu xusoodan waayahay qodobada heshiiska wax ma nooga sheegi karaysaa haddaad aan dadkana daawanaya si ay bal u fahmaan heshiiskaas siduu u dhacay ama wuxuu yahay ama wuxuu ku salaysan yahay bal 2 iyo 3 qodob oo ku salaysan heshiiska maartay bal heshiiskii wax weyn horta waxaa jira Djibouti waxaa aad loogu eedayn jiray ku xadgudubka xagga xuquuqda insaanka dad badan oo ka soo horjeedana waxa ku jira jeelasha dadka waxa ugu hormoodsanaa oo dadku ay aad farta u fiiqayeen inkastoo ay jireen rag badan oo caana oo jiray hore u jiray saddexdii sheekh Cabdiraxmaan Good oo hadda imika la jooga Birmingham jooga laftiisu iyo sheekh Bashiir iyo nin loo yaqaan sheekh Giire oo saddexdaba ay markaasi wadeen markii hore hay'ad samafala oo loo yaqaano bir marka saddexdaad nin baa markaad eegto sheekh Cabdiraxmaan Good waa nin shahaadada haysta loo yaqaano PhD-ga oo isagoo Belgium deganaan jiray oo markaa culunta haddii aan ku noqdo maadiga iyo diiniga markaa aad moodo inuu aad u daraatay sheekh kale laftiisa sheekh Cabdiraxmaan Bashiir laftiisu waa nin wasaaradda awqaafta u shaqayn jiray Djibouti in badan isla markaana isagu dowladda carabta ka soo bartay oo diinta aad u yaqaana marka waxaa markaa aad moodaa in shacbiga badankoodu ay aad markii hore conditionskii hore la isku khilaafin ay ka mid ahaayeen ama xaaladihii lagu kala dhaaqina ay qodobada ugu muhiimsan ay ahaayeen in ragga iyo rag badan oo kale oo xidhanba la soo daayo marka qodobka ugu horreeya waxaa weeye in macnaa cooda laga qaado iyadoo wax shuruuda aan lagu xidhin raggii siyaasadda u xidhnaa oo ragga aan magacaabay ay ka mid yihiin iyo qaraf kale oo fara badan oo hadda lafteeda ay ku jiray jeelasha oo ay markaa la sheegayeen aan horena ugu faahinay halkan maxalada kulleyba warbaahinta kaas waa qodobka koowaad oo muhiimsanaa waa marka ay kulleyba qolada mucaaradku aad iyo aad u xiiseynayeen calaamaadkiina inkastoo aan anigu weli Djibouti aan la xidhiidhin waxaa muuqanaya in qaar la soo daayay oo sheekh Cabdiraxmaan Good muddo 2 sano buu xidhnaa waxaa la xidhay kulleyba 2010 ma la xidhay February marka kulli hadda oo Birmingham buu joogay waxaa dulba calaamadii ugu horeysay inay muuqanayso qodobka labaadna waxa weeye markaasi in dadkii xadgudubka lagu sameeyey ama jirdilkii ama xiritaanka ahaa ay dowladdu magdhow ka bixiso iyo qodobka saddexaad oo ah in macnaha cadaaladda iyo siyaasadda macnaha wadahadalka siyaasadda ee xalaashana la soo celiyo u socon lahaa qodobka ugu dambeeyana waxa weeye in dadka reer Djibouti in la tixgeliyo dimuqraadiyadda iyo sharciga wadanka ee kala dambeynta leh iyadoo aan markaa dadku ay u sameeyeen sharciga oo dad gaar ah aan sharciga adeegsanayn qodobadaas ugu muhiimsanaa qodobada markaa lagu gaadhay heshiiska Djibouti waxaana kulli halkan dee soo gudbiyey madaxa ururka USN Farax Cabdullaahi Migol waayahay dabcan qodobadaasi waxay ahaayeen heshiisyadii ay mucaaradka iyo dowladda wada galeen inta haddaan kaga gudubno runtii
waa su-aalaha dadku isweydiinayaan waxa weeyaan maadaama awooddii ay tahay awooddii dowladda gacanta ugu jirto waxaad sheegtay waddanka inaysan ka jirin halkaana hadda ka hor aanu wakiilka arrimaha dibadda mudane mahdi aanu ka wareysanay inaysan jirin mucaaradka gudaha isku lahayn tiifiye ay bulshadooda uga tabiyaan waxa ay doonayaan ama inay ummadda u qabtaan jaraaid sidoo kale yani joornaalo dadka wax loogu soo qoro website-dhaha xataa aan jirin yani bulshada lagu tuso dhibaatooyinka waddanka ka jira wax waliba maadaama ay dowladda gacanta ku hayso ma laga yaabaa iyadu lafteeda inay dowladdii haddii heshiisyadaa la galay aysan si dhab ah dad badan oo reer jabuuti aysan u ogeyn heshiiska meesha ka dhacay maadaama aysan dowladdii ay gacanta ku hayso wax waliba oo warbaahina ma laga yaabaa aabbaha maskiinka ee carto ku nool ama tojaro ku nool ama cali sabiix ku nool inuusan warba u hayninba inuu heshiis meesha ka dhacay faysal maasan tahay horta waa muhiim waxaa loo yaqaanaa miidiyaha ama saxaafadda xorta dadka soomaalida ah ama dadka reer jabuutina khalad maaha inay ka fahmaan waxaa loo yaqaano saxaafaddu saxaafaddu waxa weeyaan waa waxay ku tustaa wixii khaldan in la toosiyo waddan aan saxaafad xora lahayn oo dadku aanay ra'yigooda si xor uga dhiibeyna waxa weeyaan musuqmaasuqa iyo maarata waxa loo yaqaano sharciga ku-xadgudubka iyo xuquuq insaanka ku-xadgudubkiisa way fara badanayaan sababta waxa weye meel dadkii ay ka tabin karaan waxay cabashooda ma jirayso marka qodobkaasi run ahaantii waa qodob aad u muhiima oo aan u malanayo aan filayo in waxyaabaha mar walba ay ku cawdaan qoladan mucaaradku ay dhahdaan ma haysan uu ka mid yahay waxaan filaya kulley qodobada ay dowladdu hordhigi doonaan inuu ka mid yahay waxaan la soconnaa in dowladdu ay leedahay tv-ga qaranka ay leedahay jeerad loo yaqaano la voice jabuuti iyadoo gaar u leedahay oo haba yaraatee wax ku hadla afka mucaaradka aan jabuuti laga ogolayn labadaasna marka labadaba afka dowladda ku hadlaan dadkii marka gudaha jooga ma arki karaan aragtida ay qabaan dadka mucaaradka marka kolley waxaan filayaa waxay hore u sidayn jireen dadkan jabuuti tviyada dibadda soomaalida sida tv star oo kale ay badanaaba tv kalson oo kale ay badanaaba ka hadlaan oo warkooda kasii daayaan laakiin tv ayagoo gaar oo ah oo loo ufasaxay dowladda ufasaxday ma jirtee waa dibaddaas iyo wixii mudaharada ay dhigayaan dibadda ka dhigaya kuwaas badana ku muujiyaan aragtidooda waayahay gabagabadii barnaamijkeena ayaanu kusii siqaynaa dabcan daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta le waxaan u sheegaynaa caawa barnaamijkeena halkaan u fadhinay oo ka hadlayna inuu yahay heshiiskii dhowaan ay kala saxiixdeen dowladda jabuuti iyo mucaaradka waaya mudane aadan intaa haddaanu kaga sii gudubno dabcan waxaa jira dadku inta badan ay isweydiiyaan su-aalo badanoo waxaa jiro warbaahinta ama dadku isweydiiyaan mudanayaasha aanu wareysanana inta badan aanu weydiino anagoo afkii bulshada ku hadlayna mudane ismaaciil cumar geele dhowr iyo 30 sano ayuu iminka sii cagacagaynaya inta uu xukunka haysto dhowaan wuxuu sheegay in mar hore sii horeysa dhowr sano ka hor 2016 inuusan u tartami doonin jagada madaxtinimada mar dhexdaas oo bilsha hadalna weydaartay bartamaheedii mar idaacadda VO da wareysatay wuxuu sheegay inuu arintaasi ka tanaasulay laakiin uu u tartamayo hadalkii uu adeegsadayna waxa weeyaan ilaahay baa garanaya inaan u tartamayo inaan u tartamayn maxaa u sabab ah ayaa is oran karaysaa mudane ismaaciil cumar geele waqtiga intaa la eg inuu kursiga kusii raago oo uu sii joogo ma arin isaga u gaara iyo awood uu gooni ahaa ma dabacsanaan ka timid xagga yani xisbiyada mucaaradka maxaad u malayn karaysaa camir dheerarka intaa la eg inuu kursigiisa uu kusii fadhiyo mudane ismaaciil cumar geele waxa weeyaan kulleyba wasi taqaana dowladaha afrikaanka iyo dowladaha carabaha iyo badanaaba waxaa iska yara xukun jacayl arrimaha ay aada uga biyadiideen saan sheegayey oo ay khilaafka badankiisa xoog dhaliyey oo jabuuti aada u qasina waxaa ka mid ah sharcigaa la bedelay in madaxweynaha loo ogolaaday inuu mar saddexaad yimaado sababta waxa weeyaan maraykanka oo kale imka taqaanaayo 2 jeer oo keliya 8 sanood ayuu madaxweyne iman karaya sababta caalamka ay u diidayaan in madaxweynuhu dhowr jeer kusoo noqdo waxa weeye dhulkii meesha wax ku yeelanaya xeedo ku yeelanaya wasaaradihii buu ku yeelanaya shacbigii baa lagu sameynaya brainwash hadhow waddanka wuxuu noqonayaa markaa qofkii oppositionka ah dan wuxuu noqonayaa qof aan tartan la geli karin dee nin meel walba lugaa kula jira oo hay-adihii dowladda oo dhan buu qofkii meel walba ku faafaya marka waxa weeyaan kulleyba sidaan arkayo anigu aan fahansanahay qodobada ay ka doodi doonaan qolada mucaaradka oo dowladda kula doodayaan buu ka mid yahay qodobkaasi waa qodob muhiim u ah in madaxweynaha sharcigan la bedelay oo madaxweynuhu soo taago mar saddexaad ama haddii kale mar afraadba uu noqon doono qodob xasaasiya oo ay wadahadallada mucaaradka iyo dowladdu ay gaar uga hadleen inkastoo ay sii wadaan iminka ay sii socdaan laakiin qodobkaas waa qodob aad u xasaasiya oo mucaaradka mar walba ay ku taabaan inay ka hadli doonaan oo runaantii waxyaabaa aad uga camalayn ka mid yahay madaxweynena waxa uu fiican kulleyba dee bacdama muddo badanahay waddankii horumariyey waa dhaqaalaha jabuuti maanta boqolkiiba
4.5 ama 4.5 ayuu kor u kacay sida la sheegayo caalamka inkastoo dhinaca kalena haddana ay weli noloshooda hooseyso haddana dhaqaalihii kubuu soo kacaya waxaa badan loogu qabtay runtii mashaariic badan oo ay kamid yihiin matalan tusaale ahaan kasoo qaadaan tareen cusub oo la dhisaya imika oo 50 milyan ku baxay oo dhiso European-ka oo Djibouti ilaa iyo Addis Ababa mid kale ka baxay Tajora ilaa meesha oo iyadana 700 milyan ku baxay oo iyadana ay samaynayso India oo lacagtooda bixinayso waxaa soo mashaariic soconaya fara badan mashruuca 300 milyan ku baxay laakiin waa Ethiopia gudaheeda in badan si dhexmaraya khaas lacag badan ku baxaysa marka mashaariic badan way jirtaa oo way soconaysaa waxaa kaloo jirta xataa warshada dhoofinta cusbada oo ay doonayaan ka dhoofiyaan Tajora lafteeda oo mashruuc gaar iyadana ah oo wado marka dhaqaaqa xagga horumarka wuu wadaa laakiin waxaa muhiim ah wadankii in siyaasadda loo dejiyo oo la isfahmo oo la siimaado oo la wada hadlo waxaan filayaa buqadda waddanka ku yaallo waa buqadda ay ku taala Singapore oo kale Singapore waxa weeye saas oo kale dhaqaalo badan ma laha laakiin istifaham iyo siyaasad degan ay waddanku hormarisay midda kale dowladaha imika u hanqaltaagaya ee iman lahaa meeshan weyn aan sheegaya 17 kilomitir 17 hektar freeportka waxay ku doodayaan in weli corruptionka uu jiro oo aanay weli kusoo dhiirin ama siyaasaddii lafteedii ay tahay weli qas ka jiro marka heshiiskan wuxuu horubeed u keenayaa in maalgelin badan loo sameeyo mucaaradkan afarta ku fiiqaan wixii corruption ama wixii khalaada hadhow ee waddanka uu leeyahay si looma saxo kuwaasoo dhan wax dhiirigeliya markaasi waddankii horumarkii dhaqaalaha inuu suruusi tariyo marka anigu kulley waxaa nin Soomaaliyeed miyiga Djibouti miyigii labada dhinac dhexaad baan ka ahay waxaan kulley u rajeynayaa inay iyagu noqdaan dad maqaranaysa dee kulley isfahma oo walaalooba oo waddankooda horumariya oo kudeeda kuwa horumaraya kamid yihiin Singapore oo kale waayahay dabcan gabagabadii barnaamijkeena ayaanu soo gaarnay waxaan doonaynaa inaanu kusoo afmeerno dhowr su-aalood oo insha allah aanu jecelnahay bal inay bulshada nala qaybsadaan maaragtay aragtiyadooda dabcan waxaa jira Djibouti waxay ku taallaa geeska Afrika geeska Afrika maanta waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo baaxadeg siyaasadeed iyo arrimo isdiidan oo salka ku hayo sadbursi iyo qabyaalad iyo waxyaabo nooca ah jamhuuriyadda Soomaaliya oo kale oo dhulkan ka nimid ah dhibaatooyin badan baa ka taagan Djibouti heshiiskan imika lagu galay maxaad u malayn karaysaa inuu saameyn ku yeelan karayo ama aragtida dadka Soomaaliyeed ay ka qaban heshiiskani maxaad u malayn karaysaa waxaan umaleeyaa in Soomaali kasta sida adiga amaano kale uu ku farxayo sababtoo ah dadka dad Soomaaliyeed weeyaan waa dad dawladda Soomaaliya bariga hore caawisay markii ay xornimada qaadanay oo jabhadii loo yaqaanay FSLC oo u dagaalamay xornimada Djibouti ay Soomaalida caawin jirtay Maxamed Xarbi Muqdisho joogi jiray oo iman jiray oo ka shaqo qaadan jiray siyaasiyiin joogin Soomaalida marka waxay dad badan oo markii hore xornimada Djibouti la soo halgamay ku faraxsan marka in walaalahooda Soomaaliyeed ee Djibouti iyo dadka degan Anfarta Tuba ay heshiiska dhaqan geliyaan oo waddanka ay cagaha u dhigaan oo maalgelinta adduunka iyo khaliijku ay doonayaan inay geliyaanba intaba ay u saamaxdo taasina markaa shaqo abuur badan iyo dhaqaalo kordha ay keenayso midda kale waxaan si gaara ugu ammaanayaa weliba khaasatan marka laga saaro dhaliilaha aan jeediyey madaxweynaha Djibouti runtii shirkii carta isagaa maalgeliyey iyadoo cidna aanay ku maalgelin Soomaalida soo keeno ilaa hadda uu ka shaqeeyaa wuxuu geeyay ciidamo badan oo Soomaaliya in dejiyaan oo weli ilaa haddaasi sidii Somaliland iyo Soomaaliya xataa shirkii u dambeeyey wuxuu ku qabtay Djibouti si uu keeno Soomaalidii uu heshiisiyo saddex way waa nin dee Soomaalida oo dirin ku noolaan jiray oo garanaya qiimaha ay Soomaalida leedahay teeda kaleeto wuxuu ku amaanan yahay inuu fankii Soomaalida dhaqankii soo nooleeyay oo afkii Soomaaliya oo maanta ka dhigo Djibouti meel walba laga qoro oo dadkii Soomaalida ee murtiyaqaanka ahaa ama qoraaga Djibouti soo keenay soo dhaqankii Soomaalida iyo fankiina uu hore u socdo intaas amaana kulleyba dhinaca Soomaalida uu leeyahay waxaan ka qayb qaatay in waddanka Soomaalida dawlad xooggan oo macnaha degan ay la tawada ogtahay ilaa isagoo awood balahayn ilaa 40 baa uu xataa mar u diray ciidamadan Soomaalida ku caawiyay kuwa qaata marka arka saameeyay yahay runtii nin Soomaaliyeed marka wixii isaga marka anaga u jeedina tala ahaana waa inuu corruptionka waddanka la dagaalamo hoos u eego waa inuu walaalahooda mucaaradka u dhageysto waa in mucaaradka markaas laftooda ay helaan meel ay ka sii dayaan warbaahinta oo ay ku nafisaan oo marka ay dee aragtida waddanka ay ka dhiibaan waddanku noqdo waddan check and balance leh oo miisaankii siyaasadda uu noqdo mid isu miisaamintaba waayahay ugu dambeyn waxaan soo gaarnay gabagabadeennii maxaad u gudbinaysaa bulshada walaalaheena reer Djibouti waddankooda uu ka dhacay heshiiskani maxaadse u gudbinaysaa ummadda Soomaaliyeed ee ina dhegeysanaysa ee ku nool jamhuuriyadda Soomaaliya ama waqooyi ama koonfur ee dhibaatooyinka iyo siyaasad xumada ay ragaadiyeen maxaad halkan uga tabinaysaa adigoo kusoo koobaya hal minute waxaan u soo jeedinayaa waxa weeye waxaa odhan lahaa arrintan ay ku kaceen reer Djibouti khaasatan dowladda Djibouti
gobolka Ismaaciil Cumar Geelle iyo saddex xisbi ee isbahaystay iyo saddex xisbi isu tagay loo yaqaan USN arrintan ku dhaaqa waa arrin runtii ku dayasho mudan waan u hambaleynayaa waan ku faraxsanahay waxaan jeclahay run ahaantii inay hor u dhaqaajiyaan Soomaalidana waxaan u sheegayaa in ay ku dadaan walaalood khaasatan shirkadda ugu dambeeyay ee lagu galay Djibouti ee u dhexaadin Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliland Soomaaliya heshiisii waxaa loo baahan yahay inuu noqdo mid midho dhala maaha marba in meel loo duulo oo la tago maaha waa in midho dhal laga keeno oo talaasul la sameeyo oo Mandela talaasul buu sameeyey iyaguna talaasul bay sameeyeen marka qofku waa inuu talaasul wax ka talaasulo oo wax ka tago oo meeshiisa qabsada maaha waxaan u rajeynayaa markaasi in heshiiska ay markii hore wadeen Soomaaliland Soomaaliya uu noqdo mid ay ka midho dhaliyaan oo noqon marba meel loo dhoofo marka waxaan aniga iyo guud ahaanba anigu kulahayba aan u hambaleynayaa dadka jira Djibouti Soomaalidana waxaan leeyahay ha lagu daydo oo iyagana sidaa ay wadaan idinkuna is fahma oo sii wada waayahay halkaa waxaan kusoo afmeeraynaa ama aynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii dhabka hadal ee caawa aanu kaga hadlaynay heshiiskii heshiiskii taariikhiga ah ee dhex maray dowladda Djibouti iyo mucaaradka Djibouti barnaamijkan waxaa idin daadaheynaya anigoo ah Faysal Cabdullaahi Abrone waxaa garabkayga fadhiya midige oo barnaamijka runtii aan qayb weyn ka qaatay mudane aadan jaamac kaahin waxaa xagga farsamada inaga caawiyey inanka daada yar ee cadaawe inta aan ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu